السلام عليكم. saaxiibayaal soo dhawaada channelkeena Eco Friendly Girls. like share and subscribe. maanta waxaan ka hadli doonaa saameynta ay ku leedahay dhuxusha deegaanka. wax soo saarka dhuxusha ayaa dardargeliya geedi socodka xaalufinta yareynta xaddiga dhuleed ee loo isticmaali karo beeraha ama daaqa maadaama ay noqdeen kuwo aan la degi karin kadib markii soo saarayaasha dhuxusha ay xaalufiyeen geedaha oo dhan. marka dhuxusha la gubo waxay ku falcelisaa oksijiinta hawada ku jirta. falcelinta kiimikadani waxay u beddelaysaa tamarta qoraxda soo saarta tamar kuleelka, sidoo kale waxay soo saartaa carbon dioxide iyo miisaan badan. marka aad wareysato dadka ku dhaqan gobolkani Banaadir ayaa ku faraxsan isticmaalka dhuxusha ayna u fududahay isticmaalkeeda. sidee u aragtaa dhuxusha isticmaalkeeda? si wanaagsan oo arkaa waxba kama qabti yani inaad dhuxusha aad isticmaasho? waxba kama qabo sababtoo ah gaaska gurigooda kuwa ilmaha uma soo taagi karo. marka meeqa sana aad dhuxusha ka ganacsanayso adiga? 30 sano. maasha Allah, waqti dheer waa. marka waxaa ku weydiinaynaa dhuxusha ayaadi waxaa tirso wax faa'iido ah ka shaqo jirto dhuxusha ka fiican waa ku nooshahay maasha Allah. waxaa ku weydiinaynaa haddii lagu siiyo gaas adiga gooni ku gurigaaga lagu dhigo oo lacag ka baxsanaynin sidee u arki leed? ma rabo dhibaatada caqabada ka dareemaysa maxay tahay oo u diidayso ina yani anan ixtiraami karin oo ilmihayga aan daan ugu gubahayaan ama waxyaalo oo iigeysa dhibaatadaas aad ka aaminsantaa? waa maasantaa too ah dadkani waxay aaminsan yihiin fikrad qaldan oo ah in haddii ay isticmaalaan gaaska ay waxyeelo uga imaan karto, waxaana loo baahan yahay awareness badan oo looga yareynayo dadkana isticmaalo dhuxusho. ma kuwa ka ganacsada oo aad uga tiirsan noloshooda in ay geed jaraan si ay dhuxul iyo qoryo ugu dhigaan. aan ugu baaqaynaa bulshadeena Soomaaliyeed kuwa ka ganacsada ama kuwa soo jara geedka in ay joojiyaan aynan dhoofin dhirteena qurxoon. wadamada shisheeye oo la sheegay in ay u isticmaalaan kaliya in ay ka shitaan shiishada iyo uunsiga. waxaa kaloo loo baahanyaa in hal abuur cad loo sameeyo dadka ka ganacsada ama soo jara geedka si ay u yaraato baahida loo qabo jarista geedka. saameynta dhuxusha 1980maadkii wixii ka dambeeyay waxaa si baani isku soo daray isbeddelka cimilada deegaanka ku noolnahay, taasoo sababtay waxyeelo baani oo bini'aadamku ku geystaan deegaanka. tusaale ahaan dhirtoo la gumaado taasoo laga dhiganayo amba loo isticmaalayo dhuxul. dhuxushu waa wax muhiim u ah nolosha qof kastoo Soomaali ah, waxayna u isticmaalaan in cunto ku karsadaan ama ay diirimaad ka helaan. laakiin saameynta dhuxusha ayaa waxay dhibaato ku haysaa deegaanka sanado badan oo la soo dhaafay kadib. dhulkaani oo dhan wuxuu ahaa dhir iyo geedo miiran, dhammaan waxaasoo dhan waa la xaalifiyey. keema aan lahayn, meel walba oo dhir ka baxda, dhir aad u hodan ku lahayn, waxaasoo dhan dabargo ayaa loo geystay. meelo fara badani waxaa bedelay geedka la dhaho garanwaa, meelo fara badanna waxaa dilay oo si xun u xasuuqay gacanta bini'aadanka. wax yar kadib dhulkaani waxaa la weyn doonaa wax lagu harsado. waa arkaysaa geed 100 sano soo jiray oo 1 minute lagu jaray. taasi waa dhibaato ba'an oo annagana haysato. haddii geedaha la xaalufiyo, dhulka ma jirto fursad ay biyo ku soo gaaraan dhulka, kadib waxaa abuurmayo biyo yaraansho baani awaaro degdeg ah. Eco Friendly Girls waxay dadaal ugu jiraan sidii ugu hortagi lahaayeen guud ahaan xaalufinta deegaanka iyo wax walba saameyn u geysta deegaanka. sidii dhuxusha dhibaatada ay leedahay looga hortagi lahaa, waxaan diiradda saaraynaa si loo heli lahaa badiil ka habboon dhuxusha oo ay dadka wax ku karsadaan, si loo dhimo ama loo yareeyo ama loo joojiyo guud ahaan jarista dhirta. waxaa la sheegaa 30 ilbiriqsi oo kasta geed la jaro Soomaaliya si dhuxul loogu dubo. dhuxushaas oo inta badan loo dhoofiyo dalal kale, halkaas oo aad loo jecel yahay dhuxusha Soomaaliya la dhoofiyo. waxaan u baahannahay in aan u wajahno si dhab ah arrimaha dhuxusha Soomaaliya. dalabka iyo daabulka waa in wax laga qabtaa labadaas si ay taas u suurto gasho. waxaan u baahannahay iskaashi, isxilqaan in la fuliyo iyo lana hubiyo in laga hortagi lahaa khasaaraha deegaanka, dhaqaalaha iyo dadka kale.
tirikoob la sameeyey dhuxusha Soomaaliya ayaa waxaa la sheegaa 8.2 milyan oo geed ah ayaa la jaraa sanadkii markuu ahaa 2011 2017 waxaa laga mamnuucay dhoofinta dhuxusha xilligii markii ahayd 2012 lacagta sanad kasta laga sameeya dhuxusha ama kasoo xaroota waxay gaaraysaa 384 milyan